kulanti wacan daawadayaasheena ku xiran janalka halgan media kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaar ah oo aan kaga hadli doono maanta 14 Oktoobar 2012 saddex sano kadib qaraxii Zobe saameynta weli bulshada uu ku leeyahay qaraxaasi iyo sidoo kale dawladda oo ilaa hadda aan si rasmi ah u soo bandhigin dadkii ka dambeeyay qaraxa Zobe maxaa lagu xasuusanayaa Zobe saameynta uu ku reebay bulshada ayaan warbixintan ku falanqayn doonaa waa arbaco taariikhdan ay ku beegan tahay 14 Oktoobar 2020 u diyaar garooba markan saaxiibayaal warbixintan oo dhameystiran maanta saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay qaraxii Zobe ee sababay dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo weynta dad lagu tiriyay liiska geerida balse aan la helin raqi ruux intaba dadkii goobjooga u ahaa maalintaasi qaraxii dhacay oo qaarkood dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba soo gaaray ayaa sheegay in xusuustooda aysan ka go'in wixii maalintaasi dhacay qaraxa ayaa dhacay xilli uu isgoysku aad u mashquul ahaa gawaarida ayaa isku xirantay dadka ayaa lugeynayay wadada goobaha ganacsiga waa ay furnaayeen dadku waxa ay ku kala mashquulsanaayeen danahooda gaarka ah muqdisho xilligaasi kuma cusbeen qaraxyada balse waa uu ka jug weynaa kuwii dhici jiray durba qof waliba oo dadkiisa waayay ayaa gaaray isgoyska Zobe oo halka mashaqadu ay ka dhacday dadka ayaa isdul daadsanaa qaarkood ayaa gubanayay goobaha ganacsiga ayaa burburay laamiga ayaa go'ay ama dumay waxaana isbedelay muuqaalka guud oo wax yar ka hor qaraxa jawi isdhex socod ah uu ku jiray aadan cabdi xasan oo la hadlay warbaahinta waxa uu la wadaagay wixii uu goobjoog u ahaa maalinkaasi isaga oo sheegay inuu ku waayay qaar ka mid ah asxaabtiisa halka qaar kalena jirkoodii uu kala go'ay qaraxa kadib waxa aan u dhacay af uuro ayaa guud ahaan meesha qarisay wax yar ka hor inta uusan dhicin ayaan galay wasaaradda qorsheynta oo aan deganaa markii aan meesha soo gaaray waxa aan arkay qaar ka mid ah dadkii aan isla shahnay oo dhaawac iyo dhimasho ah waxaana ka mid ah haweeney caano meesha ku iibinaysa ayuu yiri aadan oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii ka badbaaday qaraxii Zobe goobaha caafimaadka waxaa ka soo yeertay fariin ku saabsan in loo baahan yahay dhiig maadaama dadka dhaawacyada soo gaaray ay dhiig bixeen dawladda federaalka oo ka jawaabaysa arrintaas ayaa dadka ugu baaqday in ay dhiigooda ugu deeqaan boqolaalka ruux ee dhaawacmay ilinka laga galo isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa ku sugnaa boqolaal ruux oo dadkoodu waayay goobaha caafimaadkan la dhigay dad dhaawacmay iyo kuwa dhintay oo aan lahayn aqoonsigooda sidaas awgeed ay ka raadinayeen goobaha caafimaad dawlado kala duwan ayaa Muqdisho u soo diray dhaqaatiir agab caafimaad iyo diyaarado lagu qaado shakhsiyaadka aan dalka xaaladooda wax lagu qaban karin waana la qaaday 15 Oktoobar 2012 dawladda federaalka Soomaaliya waxay magacawday xilligaasi guddigii gurmadka qaraxii Zobe iyana waxay bilaabeen diiwaangelinta magacyada dadka la raadinayo ee lagu tuhmayo in ay ku dhinteen goobta qaraxu uu ka dhacay ama la geeyay goobaha caafimaadka madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya culimo qaybaha kale ee bulshada iyo shakhsiyaad kale oo dhalinyaro ah ayaa tagay goobtaasi gurmadka ah halka baraha bulshada la soo dhigayay sawirada la raadinayo oo la weysanaa qaar ka mid ah shakhsiyaadka ehelkooda waayay ayaa maalin waliba taagnaa xarunta gurmadka iyo isgoyska Zobe oo ah meesha uu qaraxu ka dhacay maadaama dhismaha dumay la faagayay ama la qodayay si haddii dad looga helo looga soo saaro haddaba saddex sano kadib waa sidee xaalka isgoyska Zobe oo qarax xoogani uu ka dhacay 14 Oktoobar 2012 isgoyska Zobe waxaa dib u loogu soo celiyay gabi ahaanba xarumihii ganacsi oo dib loo dhisay iyo burburka wadada soo gaaray oo iyana dib u dhis lagu sameeyay sidoo kale isgoyska ayaa sidii hore dib ugu soo laabtay waxaana weli uu ka mid yahay isgoyska ugu mashquulka badan ee ku yaala magaalada Muqdisho balse markaad dhex tagto isgoyska Zobe gaar ahaan halkay ka taagan tahay taalada 14 Oktoobar waxay dhaha u qabanayaan raadadkii xumaa ee uu ka tagay qaraxii halaagay dadka badan ee Soomaaliyeed ee ka dhacay isgoyskaasi waxaana weli ku yaal halkaasi goobo bursan oo aan weli dib u dhis lagu sameynin dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay dadkii ku dhintay qaraxii Zobe ayaa waxay sheegtay in ay gaarayaan ilaa 600 oo ruux hase yeeshee guddigii gurmadkii Zobe ayaa iyana sheegay in dadka dhintay ay ka badan yihiin 1000 qofood halka dadka dhaawacmeen ah ay gaarayaan ilaa 800 oo ruux
taasi waxay ka dhigan tahay in qaraxan Zobe ka dhacay 14 Oktoobar 2017 uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inta la xasuusto qaraxyadii ka dhici jiray caasimadda. sidoo kale waxa uu kaalinta labaad ka galay qaraxii ugu saameynta badnaa caalamka marka laga soo tago qaraxyadii ka dhacay daarihii dheeraa ee Mareykanka ee 2001. sidoo kale waa qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca Afrika in taariikhda la xasuusan yahay. maanta oo kale Zobe waxa isugu taga dad fara badan oo eheladooda halkaas ay ku waxyeeloobeen, kuwa dadkoodii raqi ruux bala iyo sidoo kale dad Soomaaliyeed oo ina u duceynaya walaalahood ku dhaawacmay kuna dhintay qaraxii ka dhacay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. ganacsiga ku yaala hareeraha wadada Zobe ayaa sidoodii loo soo celiyay, waxa qaarkood wali ku ganacsanaya dad saameyn uu ku yeeshay qaraxii Zobe, kuwa jirkooda ku waayay iyo sidoo kale kuwa saameyn jireed uu ku reebay qaraxaasi oo wali ku sugan goobta qaraxu ka dhacay. 3 sano ayaa hadda ka soo wareegtay qaraxii Oktoobar 2017 ee ka dhacay Zobe. dowladda Soomaaliya dhankeeda wali lagama hayo cid shakhsiyan ka dambeysay qaraxaas oo loo soo qabtay marka laga reebo shakhsi lagu tuhmayo in isagu uu fuudeeyay qaraxii Zobe oo maxkamadda ciidamada qalabka sida toogasho ay ku xukuntay. sidoo kale Al-Shabaab ayaan si rasmi ah u sheegan in iyagu ay ka dambeeyeen qaraxaasi, hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in qaraxaas ay ka dambeysay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo iyagu qaraxyo kala duwan ka fuliyay magaalada Muqdisho. Zobe waxay hadda noqotay urkutaalada ugu weyn ee shacabka Muqdisho maadaama halkaas ay ku dhinteen qaarna ay waxyeelo ka soo gaartay dad shicib ah oo ku dhaqan caasimadda. waxaana 14 Oktoobar 2017 guri kasta oo ku yaala magaalada Muqdisho laga dhadhamiyay geerida iyo sidoo kale dhibta ka dhalatay qaraxaasi aad ka weynaa ee ka dhacay Zobe. 3 sano kadib amniga magaalada Muqdisho waxba iskama bedelin oo wali waxa dhacay qaraxyo, weeraro iyo sidoo kale dagaalo. sidoo kale waxa jira carruur badan oo iyana ku agoontoobay qaraxii ka dhacay Zobe oo waalidiintood iyaga oo xuquuqdooda u raadinaya musiibadu halka ay ku haleeshay. waxaa kamid ahaa dadkii lagu waayay qaraxii Zobe hooyo iyo gabadheeda caana ku iibinayay hareeraha laamiga isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. waalidiintood oo aan la hadalna ayaa inoo sheegay in ilaa imika raq iyo ruuxba aysan haynin hooyadood iyo gabadhoodii, isla markaana ay iska samreen maadaama aan la hayninba. dadka la waayay ayaa sababtay markii qaraxu dhacay kadib oo la kala garan waayay dadkii maadaama hilbihii ay isku dhex yaaceen, isla markaana gabi ahaanba inta la ururiyay hilbahoodii hal goob lagu aasay. waana sababta dad badan oo waalidiin Soomaaliyeed ay uga samreen qaar kamid ah ehelkooda maadaama raqi ruuxba ay waayeen. Zobe waa musiibo aan la hilmaami karin, waa dhibaato weyn oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho marnaba dhigahooda ka go'i doonin. waa sidoo kale urkutaalo weyn oo qalbiyada carruur badan iyo waalidiin badan dejisay xaalad xanuun ah maadaama dad aad u qurux badan eheladooda iyo waalidiintoodaba ay ku waayeen 14 Oktoobar 2017. dhinaca kale war-saxaafeed ka soo baxay wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa looga hadlay weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta oo kale 3 sano ka hor ka dhacay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya ay xusuusan yihiin dhibaatadii xooganeed ee shacabka ka soo gaartay qaraxaasi oo noqday inta la og yahay kii ugu xooganaa ee ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika intaba. si kastaba arxan daradii waxashnimada ahayd ee weerarkii 14 Oktoobar 2017 lama iloobin, waxaana murugada la qaybsanaynaa qoysaska dadkii naftooda ku waayay iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday, ayuu yiri ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr James Swan. warka ka soo baxay xafiiska James Swan ayaa sidoo kale waxa lagu yiri bahda qaramada midoobay oo la jirta dadka Soomaaliyeed waxay diiradda saaraysaa mustaqbalka iyo in la sii wado ambaqaadista horumarka ku aadan nabadda, dawlad wanaagga iyo barwaaqo ku soo dabaalida dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in kadib qaraxii Zobe ay dadka Soomaaliyeed muujiyeen adkaysi, isla markaana ay ku tallaabsadeen horumar dhinac kasta leh. horumarkii lagu tallaabsaday laga soo bilaabo 2017 wuxuu ka turjumayaa adkaysiga dadka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda ku aadan mustaqbal wanaagsan, inkastoo ay jirto dhibaatada xag jirnimada gacan ka hadalka leh ayaa mar kale lagu yiri warbixinta qaramada midoobay ka soo baxday. guud ahaana daawadayaal waa naga inta warbixintii gaarka ahayd oo aan ku falanqeynaynay qaraxii ka dhacay Zobe iyo saameynta bulshada Soomaaliyeed weli uu ku reebay dhagahooda.
tan iyo kulan dambe nabadgelyo.